canfartii mar kale cashiro ayaa loo dhigayaa waxay isaga cararayaan dhulkii Soomaalida oo ay haysteen markan waxa laga dilay saraakiil dad ayaa laga qabsaday canfarta waxa soo gaaray jabkii ugu weynaa muuqaalka TV janaalkan wuxuu idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida xalka canfarta jabkooda weyn ee soo gaarayo iyo sida Soomaalidu ay uga go'an tahay in guulo waaweyn ay gaaraan aragtidaada qaybta hoose ayaa inoogu reebi kartaa sidoo kale muuqaalka like saar si Soomaali badan uu gaaro oo ay aragti ugu dhiibtaan isla markaana ay u ogaadaan xaaladda Soomaalida iyo guulaha dib u soo noolaaday oo ay Soomaalidu gaarayaan canfarta waxa la soo warinayaa in jabkii ugu weynaa mar kale uu soo gaaray waxaana isaga cararayaan dhul badan markay ay arkeen in aysan isdifaaci karin oo aysan celin karin goobaha ay gacanta ku hayaan ee gacantooda ku dhiman oo ay Soomaalidu leeyihiin taas ayaana keentay in aragtiyo kala duwan ay ka dhiibtaan oo ay Soomaalidu isha ku hayaan hadda canfartu waxay la kulmaysaa caqabad ballaaran oo aanu la saadaalin karin siday ahaan doonto maalmaha soo aadan waxaana gabi ahaanba ay caruurtooda iyo haweenkiiba ay ka kaxeeyeen goobihii ay Soomaalidu ka haysteen iyada oo saraakiil ka mid ah ciidamadoodana gacanta lagu dhigay dhulkii laga qabsaday hubkii ayaa lagala wareegay waxaana arrinkaas sabab u ah galbeedka gobolka City Soomaalidii oo isku aruursaday isla markaana qayb ka noqday dagaalka weyn ee halkaasi ka socdo saraakiisha la qabsaday waxa ka mid ah laba sarkaal oo muhiim u ah ciidamada canfarta kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka galbeedka gobolka City waxaana ay soo joogeen markii Soomaalidu dhulalkeeda la xoogay ama la qaadanayay waxaan arintaasi durbaba ka dhashay hadalhayn iyo falcelin weyn oo Soomaalidu ay ka muujiyeen maadaama ay dhibaato ka dhaxlayeen dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira galbeedka gobolka City canfartu hadda waa ay baxday dhulkii waa ay ka carartay goobihii gacanteeda ku dhinaa qaarkood way isaga baxday iyadoo xitaa loo dhawaan oo aysan dagaal arag laakiin Soomaalida guushooda waxa la soo dadajinay baa leeyahay midowga iyo sidoo kale isku tashiga candhuufo ayaa hadda waxa la soo warinayaa in meeshii ugu dambeysay ay tahay oo ay Soomaalidu isugu soo marxabeynayaan isla markaana laabta isu gelinayaan haddii ay sidaasi si ahaato guulaha Soomaalidu ay sii tarayaan waana ay sii jarayaan waana dhibaato canfartu ay la kulmi doonaan iyo sidoo kale xabashida waxa la leeyahay hadda waxa ay qorsheynaysaa shirqoolo waaweyn oo ay ka maleegto gudaha dawlad deegaanka jigjiga ay ka bilaabaysaa iyaga oo raba in dhabar jabin la yaab leh ay ku sameeyaan Soomaalida laakiin taas bedelkeeda waxa la leeyahay Soomaalida ayaa u diyaarsan oo waxa ay difaac kaga jiraan meel walba albaab walba waa ay soo xireen albaab walba oo ay ka soo geli karaan cadowgana waa ay isku dhufteen baa la leeyahay taas ayaana markhaati ka noqon doonto waxa Soomaalidu ay ka damacsan tahay qorshaheeda iyo sidoo kale dadaaladeeda ku aadan dagaalka ay kula jiraan dhinacyada haddii aan taasi helin waxa ay sidoo kale noqon doontaa aragti weyn oo ay dhibaato kala kulmi doonaan Soomaalidu awoodooda canfarta weeyane xabashida laftirkooda jigjiga ayaa laga qixin doonaa haddii aysan ay wax ka bedelin nidaamka ay la dhaqmayaan Soomaalida dad badan ayaa aaminsan oo falanqeeyaal ah in Soomaalidu ay dhaxlayaan wax badan oo faa'iido ah maadaama ay isku midoobeen oo ay isgarabsadeen siyaasiyiin iyo shacab badan ayaa aragtiyo badan qaba iyagoo guusha u arka inay tahay mid weyn ilaa garbicii saacaday tacanuufo ha laga saaro iyaan la sugin canfarta ay leeyihiin Soomaali galbeed iyo dadkeeduba waa dad la hubo xabashi oo dhan taariikh ay u dhigtay laakiin waxay ku dhex jira dad aanu wanaagsaneyn oo caada qaatayaal shacabka Soomaaliyeed ee dhulkiina aanu soo ceshano oo aynu marka hore ka bilowno gawaani iyo deegaanada kale ayay dadku qaar leeyihiin dadka qaar ayaa isticmaalay erayo ay ku jirto guul liyu iyo dadka Soomaaliyeed ha guuleystaan ay leeyihiin aragtiyadaasi waa kuwa badan guul ayaan u rajeynayaa ciidanka xaq u dirarka ah ilaahow dhulkeena noo soo celi ay leeyihiin Soomaalida qaar halalaayo annaga maanta itaal aanu haysan ayay na dhibaateeyeen laakiin maanta ayay godkooda biyo ugu soo galeen arrinkaas ayaa la leeyahay daarood dhul bahante ciise iyo sidoo kale cid walba waa in ay u midoobaan in Soomaalidu ay u istaagaan ayaa la yaajadku waa mid banaan iska difaaca guuleystaha ciidanka xaq u dirarka ee dawlad deegaanka guuleysta ayaa la leeyahay waa aragtiyo badan oo ay qabaan dadka falanqeeya ama ka faalooda xaaladda Soomaalida iyo sidoo kale dagaaladooda waan u soo laaban doonaa aragtiyada iyo sidoo kale arrimaha kale haddii aynu eegno ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kordhiyay bilihii ugu dambeeyay inuu magacaabo ergeyo waaweyn waxaana tan iyo sidoo kale dib u doorashadiisii 15 May 2022 uu magacaabay ergeyo dhowr ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud weeyane madaxweynaha ayaa wax ka yar sanad magacaabay 4 ergo kuwaasi oo markii ugu horeysay ka soo dhex muuqan doona madaxweynayaal soo maray dowlad goboleedyada qaar iyo hoggaanka xisbiyada mucaaradka qaarkood madaxweyne Xasan Sheekh ayaa 9 maalmood
kadib doorashadiisii madaxweynaha waxa uu 24 May 2022 u magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Soomaaliya. Cabdisalaan Cumar Hadliye ayaa 14 Agoosto 2022 waxa uu magacaabay ergeyga u qaabilsan dalladda bulshada Bariga Afrika isagoo madaxweynuhu uu dardargelinayo qorshaha ka mid noqoshada dalladaasi. Xasan Sheekh ayaa maalin ka hor waxa uu madaxweynihii hore ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare u magacaabay ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka ee goobaha dagaalka. Isla shalay waxa uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ergeyga arrimaha Soomaaliland u magacaabay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa noqonaya mas'uulkii labaad ee isla shalay uu xil u magacaabo madaxweyne Xasan Sheekh waana laba nin oo miisaan siyaasadeed oo culus ku leh Soomaaliya aadna xog ogaal ugu ah arrimaha loo xil saaray iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda dalka. Si kastaba magacaabistii Cabdikariin Guuleed iyo Maxamed Cabdi Waare ayaa ku soo beegantay xilli ay soo dhowdahay sanad guuridii koobaad ee markii dib loo doortay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo ka dhigan in uu Xasan Sheekh Maxamuud bilaabayo dadaalo uu ku doonayo inuu ku soo bandhigo waxqabadkiisii iyo qorshihiisii ku aadanaa dhibaatooyinka baasan ee dalku markuu iimaanayay ka jiray. Dhanka kale haddii aynu eegno gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan ayaa digniin u diray dadka reer Hiiraan gaar ahaan bulshada ku nool magaalada Beledweyne isagoo uga digay laba khatarood oo waaweyn. khatarta koobaad ee Cali Jayte uu kaga digay waa fatahaada laga cabsi qabo in webiga Shabeelle ay ka geysto magaalada Beledweyne iyo qaybo badan oo kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan. gudoomiye waxa uu sheegay in digniino culus iyo khataro waaweyn oo fatahaadaha ku saabsan ay soo gaarayaan dhanka dalka Itoobiya ee kaga imaanayaan webiga Shabeelle oo ku soo burqanayo qaybo badan oo ka tirsan dhinaca Itoobiya waana qaybaha ugu badan ee hadda uu saameyn karo gobolka Hiiraan. reer Hiiraan iyo guud ahaan reer Hirshabelle waxaan u sheegayaa in dhulka uu maro webiga Shabeelle ay naga soo gaarayaan fariimo digniina dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida ayay naga soo gaarayaan digniinahaas ayuu yiri Cali Jayte. gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa carabka ku adkeeyay in uusan ku talinayn ama talo uusan ku bixinayn in hadda laga sii qox Beledweyne iyo gobolada kale ee fatahaaduhu uu ka geysan jiray webiga Shabeelle, balse uu dadkiisa ugu baaqayo inay feejignaadaan oo ay is ilaaliyaan. fariinta labaad ama khatarta labaad Cali Jayte uu ka digay waa dhagarta Shabaab isaga oo dadka reer Hiiraan ugu baaqay in ay u diyaar garoobaan dhagarta kaga imaan karta dhanka kooxda Al-Shabaab ee dagaalada adag ay la galeen. reer Hiiraan si gaar ah ayay dhibaato ugu qabaan Al-Shabaab ayuu yiri mar kale. waxaan ugu wargelinayaa dadka reer Hiiraan inay u diyaar garoobaan cadowga dhagarqabaha ah ee dagaalka ba'an ay la galeen. hadda waxaanu ku jirnaa qorshihii ugu dambeeyay ee lagu ciribtiri lahaa argagixisada. waxaanu ku ammaanayaa ciidanka geesiyaasha ah ee u diyaar garooba soo afjaridda cadowgaas ayuu yiri Cali Jayte gudoomiyaha gobolka Hiiraan. digniintan ayaa waxay ka soo yeertay gudoomiye Cali Jayte Ismaan waxaana ay ku soo aadeysaa iyada oo dalku uu ka curtay roobabka gu'a isla markaana digniino badan laga soo saaray fatahaada ay geystaan webiyada mara Soomaaliya, iyada oo sidoo kale lagu xasuustay in gobolka Gado uu ka geystay dhibaatooyin baasan oo ay soo gaareen bulshada. dhowaan webiga Juba ayaa fatahaad ka geystay magaalada Baardheer ee gobolka Gado, halkaas oo in ka badan 10 qof oo fatahaaduhu ay ku dileen. sidoo kale xoolo iyo guryo ayuu baabiyay webiga Juba oo fatahaad ka geystay gobolka Gado. arrintaas durbaba waxa ka dhashay hadalhayn badan iyo cabsi weyn oo soo wajahday dadka ku nool labada Jubbe, labada Shabeelle, Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Gado, waxaana dhibaatada ay ka dhaxleen roobabkaasi uu yahay mid saameyn togan ku yeelan kara noloshooda. guud ahaan saxaabay halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo.